إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خميس الجمعة متقناي محلها هواي ساعدين جرني أريها متقناي خسورة جرني كسو بلاو تمركم متقناي محلها لاب كان دي بي أما تي بي دو حنت كسو جرة أها. مال دور يعني خرطوم مركان تجا هرتو مركو أوريسو waxaan u tagay markan inaan soo barto medicine marka horeba marka hore tagay aha lana biology waa ku fiicnay marka niidaydan inta badan marka secondary ku jiray buugta waxaa iska qor jiray DR Amin waan fiiriyo waxaan yiri science haddii medicine aan helin ha iga ahaato shariicana ma aaminsaneen in class lagu barto yani khuraafaadka aaminsanaya ka mid tahay مثلا xilligaas qiraa'ad maxaa la yiraahdaa waa quraanka ilaahay uu soo dejiyay laakiin kalimooyinkiisa ama xaruftiisa ay kala bedelan yihiin kala qaab loo akhrinayo oy ninki waana cabaaday kadib uu soo baxay ilaa inta qannay marka bixisid dhabarka ma aadin kartid soo gaal u siqayo wajigiisa sanamka aadinayo uu soo baxay cad waaweynad magaalada iyo aimada intooda badanna waa dadka Suudaan ka soo baxay waxa u horeeyay مثلا Sheikh Suudaan Suudaan waxa weeye wuxuu ka mid yahay dufcada u horeeyay ka soo baxay Suudaan 77 tii maxay keentay magaaladan uu ku taga magaalo kale uu taga marka magaaladu uu ka imaaday oo naca taa waxay keentay hadda magaaladan dhalinyarada ma joogan intee jiraan wuxuu ku leeyahay amdheer aadam ay ugu dambeysay faana xaqiis ka tahay wuxuu ku leeyahay waxay ugu dambeysay 2010 maanta la joogo dhinac walba taa fiiris murug baa ku dilaysa hadaa fiiris muslimiinta kulli guud ahaan murug waa murgoonaysa kuwa ka dhalatay in magaalada ku dhalatay marka fiirisid murug ku dar waay waxa yeelay ummaddu waxa laga fiiriyaa horumarkoodii ama dib u dhacoodii dhalinyarada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسان كسو دوادا جيسي ميديا بودكاست برنامج كمانت وحانو مرتيا شيخ محمد آمين شيخ عثمان وانين قارئة وانين أقونو له الدين iyo maadiga وانين دالكا بنانكيس waxa kusoo bartay marka waxaan rabnaa inaan ka ogaano waxyaalo badan ayn ugu weyn tahay dhinaca qiraa'adka mise qiraa'adka sheekh kusoo dhawow waxaad nooga bilaaway quraanka kariimka بسم الله waan dhawahay جيس ميديا أدعو محسنتين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabnaa mid ugu horeysa horta inaan micnaha markaad yareed mandheera xaalad say ahayd dib markaad nooga celisid noloshaadii waxaan rabnaa marka inaad waagaas intaasoo sano ka hor xaaladaas soo maraysay say ahayd bal wax yar nooga taaba بسم الله كلي أنا هرت مركو هريس حاول كل شيء مقالة تن منديرة أيضا كسو برباري يرانتي ده أيضا كقاتي قرآنك مقالة أنا كحفظي يرانتي دي معلمه وناك سنة رنتي مش أنا كقاتي مقالة وكدون ما أنت سيدي هاي إن بدن maalmaha oo maxay ahayd yaraanta aan ku jirnay waxbarashada qaybaheeda kala duwan haday noqoto dhinaca quraanka ama dhinaca iskoolka anaan iskool ma bilaawin wala waxbarasho kale ilaa quraanka ka dhameyn marka horeyso marka horeyso quraanka ii horeeyay quraanka marka xifdiyay da'daydan 10 sano ay ahayd markaas marka kadib ayaa waalidiintu waxay i geeyeen اسكول يوم الدرسة يعني قرآن كمركا دميس كدب ها أي اسكول لغو بلاوي يا اللي بلاوي بويستا ما كبلاوي برايمري يوم الدرسة لا وضبا وفرصة حتى منطقة محل هي دتك أي قوات كاتي المها ده حبرشيد كجرنتي أنا لكن حلقة إلهي نوفذ ذي دتك جيل كاس صومري مركا مرة منطقة محل هي اسكول كسوي حر آذيني قلبت الدبنا آذيني قيبتها مدرسة
oo culum shariicada lagu baranayo fiqi xadiidka tafsiirka kida marka adiga ilaa mutaqanay aan kaga dhameeyay primary kadibna waxa ku xigtay secondary marxaladda secondary aan u gudbay secondary form 2 markaan marayo u malaynaya ayaa waxaan dhameeyay thalith thanawi oo dhinaca madrasada markaasaan dhameeyay kadibna mutaqanaa iskoolka markaan dhameeyay scholarship helay waxaan mutaqanaa aaday wadanka Suudaan waxbarasho marka maalmihii aan yaraa iyo xasuustii maalmihii baa weydiisay runtii maalmo waxaan dhihi karaa mutaqanaa ayaam la tumxa min adh-dhakira yani waa maalmo aanan la hilmaami karin xasuus badan runtii maalmaha mutaqanaa waad garanaysaa qofka sidiisaba waxaa mutaqanaa marxaladda noloshiisa ugu fiican waa marxaladda uu yar yahay wax fara badan uu ka warhaynin adduunyadan marka meesha uu joogo ay mutaqanaa maxaa lahaayay ay meel aad iyo aad mutaqanaa u macaan oo qurxoon adduunyada dhan meesha mutaqanaa kali ay tahay inuu aaminsan yahay yaa way harto marka u horeysa saadaraad Mandera xasuusaha mutaqanaa xasuusta waayihii yaraa waxay mutaqanaa dee in ay ka duwan tahay aan dareemayo 100% maanta joogno xaaladda maanta lagu sugan yahay 100% marka fiiriyo mutaqanaa hadda marka magaalada maraayo meelo markii waagi aan yaraa aan mari jirnay soo xasuusto runtii marar qaar waa qiirooda meeshii oo isbedeshay laakiin waxa kamid meesha hadda fadhino wadadan dhulkan kulli waxay aan ariga ku raaci jirnay masha Allah khamiis jimcada mutaqanaa maxaa lahaay hooyo saacideyn jirnay ariga mutaqanaa ku soo raaci jirnay kasoo bilowdo markuu mutaqanaa maxaa lahaay laabkan DB ama TB waxa inta kasoo jira meel dooreed meeshan sax beerweyn dhinaca kale ku leeyahay marka gadaasheedii ya ariga lagu daajin jiray marka meesha ariga ku raaci jirta maanta marka laga wareysana masha Allah dabaqa ka dhisan hadda kana ku jirno dabaq sax waa marka isbedel ku arki kartaa maxaa lahaay ku imaaday dhinac walba haday noqoto dadkii xaaladooda isbedelay dhulka iyo maxay ahayd horumarkiisa isbedelay dadkii oo zuulay oo dadkii magaalada dadkii agaran jirtay soo korteen ay magaalada ku yiraahiin ay joogin ba dad cusub ay joogan sax marka waa maalmaha maalmo barakeysan oo wanaagsan oo maalmihii wacna marka haddii oo waxbarashadii secondary marka dhameysay kadib waxaad aadii Suudaan marka Suudaan jaamacadda Khartoum Soma jaamacadda Afriqiya marka oo ku taal Khartoum marka maxaad ka soo baratay xag Khartoum markaan tagay horta marka u horeyso waxaan u tagay markaan inaan soo barto medicine marka horeba tagay lana biology ku fiicnay marka niidaydan inta badan marka secondary ku jiray waqti waxa iska qor jiray DR Amin Dr. Amin oo kale macnaha dhakhtarnimo jecleed ma sha Allah ilaa waxa xasuustaa kor marka form mareynay عنو كنت صاحب أنا متقنع أو حي هذا فصل أنا هن أي أسبوع قمنا خلاص مركو إما هذا حلير تجرت وحنصنا وحنصنا مركو حلير متقنع عدين كان إسبتال مركو خلاص قارد كم ده يوير جيرين دكتور أنا مركو متقنع ترك السيد وقرأ exactly typical مركو قرأ observation قمت أنا خاص متقنا lab result لو قراي هذا قريس marka waxyaalaha xasuusto waxa kamid ah inaan waraaqan u qorayn banaanka u baxay meel pharmacy uu soo dhufteen hori u geeyeen mastaha qacli la soo fasaxay mid aad qortay marka taa waxay u dhalisay marka mutaqana waxay ahayd taas jaceelka u qaba caafimaad marka meesha aan tagay وفعلا ودن كاس رولز كيس ودن أنا كتغني لو شيء كلا هاين وحيقول حرام مادة فيزيكس كينيان أوبشن واي فيزيكس لازم معهن وأيدا كيمستري أو بيولوجي أيدا of the sciences yes two of them أيدا of the sciences actually حاجة مركز تكتيد لكن وحوي the three science is compulsory for you to join any medical course مركز وحيا متقنع إنه قلتي مركز وحيقول إنك الله نحرسني مجذوب لجراد ودنتي wuxuu yiri iska sug sanadkan ama ma ahna shahaada Suudaaniya waxa soo register gareysa physics imtixaan gal maadadaas next year scholarship of medicine diyaar ku waxa ahayd ku haynaa marka sanadan in la sugo waxa aniga waa waqti dheer uu noqotay oo yar dhibsay kadib waxa lahay
مسوي كري أبيه بقى تخنا أسرع عليه ومش أسأل أسين جامعة وصل صوب نفتي مرة ماشو ها صح صح مركا أوبشن وحالي إسي شريعة لو أيه قانون شريعة والقانون حدهن economics administration and political science iyo faculty لهذا faculty of science صح faculty of science وحصوص قراي microbiology صوص قلي وحصوص قراي geology خلاص markaan fiiriyo waxaan yiri science hadii medicine ahelin ha iga ahaato shariicana ma aaminsaneen in class lagu barto yani quraafaadka aaminsanaya kamid tahay مثلا xilligaas hadda iskii bedel fikrad maxay yeelay in background diin leh oo kitaab wax loo soo aqriyay wax fahansanay marka iyada aan jaamacada tagay at the same time marka marna isma dhahaynin muqarraraat ama syllabus oo shariica class lagu bartay inuu jiro ma aaminsaneen ilmu ku baran karo يعني ما أمن سنين صادرت متقنا ما حلقات كأيو فيلن أنا كبرت الشريعة كلاس أم كلاي وحمركم متقنا سمي وحلقات economics administration political science لو سنة أهريسي كده متقنا سنة كزدحات تخصص ميديا هو هاي economics محل هاي جامعات مرحلة الجامعة مركز أنت سيد أنا وحلو يقانا bachelor degree يا مركز متقنا academy 2013 كي يا سوقاتي كدب متقنا محل هي waxbarashada kala masters ka kale Kenya iyo marka midaas maadig marka laga soo tago maxaa kala ku baranaysaa jaamacada waxaan baranayay mutaqana cilmiga liirada qiraa'at haye qiraa'aadka waxaan bilaaway anigoo maxay ahayd sanadka u horeeyay jaamacada Umfastiya ayaa waxaan bilaaway qiraa'aadka inaan barto waxaan sabab u ahaa inaan barto aabahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyo maxay yeelay nin caalim ah oo cilmigaas sheekh weyn ku ah magaalada wadanka loo dambeeyay Khartoum oo asxaab ay yihiin asaga isku waqtina ahaan jireen waliba asaga ka sii dambeeyay sheekha ka sii dambeeyay aabahay ka sii horeeyay ayuu igay wuxuu yiri mutaqannikan oo iskeen baray marka wuxuu yiri mutaqana ka faa'iideyso ka bara cilmiga qiraa'aadka marka xalaqaadkaas ku taxnay taqriiban 3 sano sanadka saddexaad marka mareynay ayaa waxaan u ijaaziyay qiraa'aadka 10 way waana 7 waana 10 anaga badanaa waxaan maqalnaa 7 inay yihiin aan naftirkay 7 ka warqabaa صح marka waa isla socodeen midaan caadiga maadiga iyo qiraa'adku ah hal asla wadi koorsatku asla wadi qiraa'aadka marka mutaqanaa 3 sano thaniya marka maray jaamacada waan dhameeyay 7 وأنه إجازة حلا متقنع إن قفك لا معناه لا أقلاده certificate recommendation form of recommendation at the same time و certification أو you'll be certified إن متقنع علما أقادته أبركرتد وكذا مركا أنا دورة دميني أو اسكت جيران دولين فربنا نيجيريا السنغال الله المستعان تشاد سومالي كينيا الله المستعان هذه السودان مقتهي أرديد إمادو أردي أفريقيا مالو المكيمات مركا أنا كوحة دميني لكن إلهي مقدس اسمعني كوحو شيء أنا هو شنقة أنا الحولي إن أمتقناي تدريس أقو بلاونه جامعة قيبت هذا دم سيدك بكوس إمامكم سيدك مركا حالة داس صح مركا قراءتك بل واحد nooga sheeg anaga waa maqalnaa laakiin dad unba kulli dad soo akhriso waa aqaanan laakiin dadkan badana waa un maqlaan say u kala baxaan ma aqaanan marka anagoo isticmaalin tusaalahan ayad quraan ah isku day bal inaan dadka ay fahmaan Allah yabarik fiik qiraa'aadka waxa loo yaqaan mataqaanaa oo different version oo quraanka loo akhriyo صح wuxuuna ku soo degay sida ayada ah macna jibriil markuu u iimaanay nabiga kaleey salaatu wassalaam sida amtaqana uu akhriyay jibriil ayuu nabiga u akhriyay uu qaatay sidaasuu nabiga wuxuu sii baray saxaabada generation kala taabiciinta ugu gudbeen taabiciin sii gudbeen ilaa anaga uu soo gaaray hadda qof marka mataqana qiraa'o baranaysid ama riwaaya waxa mataqana lagu siinaa wax la yiraahdo ijaazada waxa mataqana waa the chain of the narrators كل سو قدبي أنا عليها متقناء بالله إلا مش هوس نعم اسكو حيغان عمر محمد تقناء قاتي عمر با متقناء إجازة إنه ذات كبره أنا إنه حققاتي شيخي وفلان والوضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مركا قراءتك مركا والفاظ قرآنك
oo yacni qaabo kala duwan loo akhriyo qaababkaasna mataqaanaa ikhtilaafkaasna yacni qaab oo yacni intaasoo siyaaba ayaa mataqaanaa sababa taas hadda waxba kama sheegayno laakiin jumla ahaan qiraa'aadka markaan mataqaanaa qofka aan fahmayn hadda mataqaanaa inuu ogaado rabo qiraa'aad maxaa la yidhahdaa waa qur'aanka ilaahay uu soo dejiyey laakiin kalimooyinkiisa ama xuruftiisa ay kala bedelan yihiin kala qaabqaab loo akhrinayo dadka qaar waxaa laga yaabaa dadkan maaragtaa tajwiid waa tajwiid sax dadkan kale oo dadkan badanaa raxweynta markay subcinayaan dad baa laga yaabaa qaabkaas inay qiraa'ad ka mid tahay oo ay fahansaneen laga yaabaa marka okay mithaal hadda waxaan usoo qaadanaynaa qof walba u yaqaano suurat alfaatixa sax qof walba u yaqaana muslim nacam ha مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين كلمة داس قراءاتك قارن وحال أخرية مالك يوم الدين قارنة ملك يوم الدين صح سيدا سوكسو دكتي صح نبي مركي أميرنا جبريل الحوري مالك يوم الدين ملك يوم الدين سيدا سوكو أخري صح سيكسو دكتي وايب سوكسو دكتي أيه إياك نعبد وإياك نستعين وفرقكم جري خلاف اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قارنوا حي أخرين وحالو سودجي قلو أخري اهدنا الصراط صاد إيو اهدنا الصراط سين اهدنا الصراط المستقيم مرك لا بضمن وصح وصح وحكى له صح وحد يرى إشمام وحد يرى اهدنا الصراط المستقيم صمركن صح وقراءة حمزة قراءة حمزة مثلا هو أخري اهدنا الصراط المستقيم كان هو أخري اهدنا الصراط المستقيم كان اهدنا الصراط مركم أركيسا different version القرآن كله آخرنا مرك أنت سوى قراءاتك وقرآنك كله مرك فاتحة آخرني كل لا برب الناس اللي جارايو فرق يمين والبقول حي بيج والبا أنت سوى فرق كهليسا مرك ما هي هذه قراءاتك أساس واي قراءة وحجرت واحد هذا قراءة يو رواية قراءة مثلا حتى دان سوق أنا كتاب كذا أنا أخرس إنه مصحف كه وحكوا قرينه روايات رواية ده سوحاوي متقن قراءة عاصم عليه هو قراءة عاصم عاصم حكوري لور راوي لو الراوي كوريين the two narrators لبدا الراوي منه حاوي متقن حفص منه شعبة لهذا كتابك حكوا قرينه حفص مركه وأركت كتابك مركه قلف كان قر مركه سو رواية حفص قر مرك والرواية صح iyo qiraa'o way kala yihiin qiraa'o waa qaariga kor oo la qaatay labadan oo narrative-kaas ay ka wariyeen yaa waxa la dhahaa mataqana qaari ama qiraa'adana mataqana waxa mid noqonaysa riwaayo marka suuradaha quraanka mid ugu gaaban oo laga helay qiraa'ad badan ma ogtahay isku mid ma hansaad sheegtay Soomaa suurada waxa laga yaabaa qiraa'ad badan inay qabto midna ay yar yihiin خلاف قراءاتك ها مثلا شوف سورة قرآن أو قابن أو سورة الفاتحة سورة إخلاص قل هو الله أحد ما هنا نعطيناك الكوثر قلوا لا خلاف كنجر قراءات أي كالآخرين قاب كله آخري باشون قراءاتك قراءات دورة كنجر مركا معها معناه سورة الركاد يرانت هذا كل حرنا ها سوما قرن ساسو شيخنا marka tobankan magacyahooda kulay hadii oo dadka ka faa'iideystaan say u kala baan magacyo way qiraa'at al-10 markii la yiraahdo waxa u horeeyay mutaqannay imaam naafi' saldhigiisu wuxuu ahay Makka Madiinat al-Munawwara wuxuuna mutaqannay sheekh u ahaa madaahib al-arba'a mid kamid madaahibta sheekhoodii oo imaam Malik إمام مالك مذهب كمالكي ذا شيخ يزحوها نع قراءاتك نافع مركو حكى وريي قالون إيو ورش أوكي قراءاتك الجملة هنا دا شيء مركو قراءة نافع قراءة ابن كثير أبو عمرو البصري قراءة ابن عامر الدمشقي قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي كتبنا قراءة أبو جعفر وقراءة أبو جعفر يعقوب
وخلف العاشر tobanka waa kuwaas tobanka taas waay maasha allah marka su-aasha kale waxay tahay dadka badana waa ognahay maadiga qofka hadduu suubinaa maadi uu ku egyahay maadi uu la xarbinaa haddii ay diinta ay noqotona dhinaca diinta unbuu dhinacan laakiin adiga waxaa suubisay labadaba seed isku waday marka ahsant waxay mataqaanaa ka soo bilaabatay maadiga iyo diiniga horta kelimada maadiga sudanista waxay dhahan kelima kanisiya waa kelimad kaniisada laga isticmaalo sax ma ahanay leeyihiin wa ficlan warkaas saxa maxaa yeelay ka muslim ahaan waxay ka mid tahay waxyaabaha western ay ku guuleysteen inay muslimiinta ka dhaadhicisiyaan ay ka mid tahay yacni adiga ka muslim ahaan maxaa waaya dhinaca diin dhinacuna diin darro ahaan may ka dhiganta may cilmiga asal ahaan muslimiintaas kale muslimiinta laga soo qaatay sax marka gaalada waxay ka tahay ayaga diini iyo maadi markay leeyihiin inay kala saaraan qofka diintiisa iyo adduunyadiisa ujeedadu saas waay sax diinteenana adduunyada iyo wax dhanba mataqaana anaga waa kitaabkan wax walba ku jiraan qur-aanka waxaan ka dhex helaynaa qaabka loo idaareeya administration systemka waa ka wax walba sax waay politics iyo mataqaana sida loo maamulo qur-aanka waa ka helaynaa wax walba ku jira soo maaha ninka gaalka laakiin mataqaana waxaa ma rabo wuxuu rabaa inuu mataqaana ku dhahnayo nolosha adduunyada has nothing to do with marka qaabkee isku waafaji marka barashada waxaa isku waafajiyay waxay ka soo bilaabatay primaryga bidaayada hore maadaama mataqaana labadaba asla wadnay dhinaca iskoolka oo systemkan englishka ku baxa iyo dhinaca kale culuum shariicadii oo madrasada fiqiga xadiidkii tii marka mataqaana ilaa jaamacada ila socotay jaamacada markan tagay waxaan iskula waday marna morning hore maalan waxaa aadaya jaamacadda 8 saac markan ka imaado jaamacado kale baa aadaya runtii oo dibloom iyo waxyaalo kale ka sameynaya galabtina xalaqaadka masaajidda lagu dhigaa ka qayb galaya marka culimada waaweyn oo mataqaanaa yani maalan tafsiirka kale waxaa in badan aan ku taxanay sheekh liila sheekh maxamed amiin ismaaciil culimada waaweyn mufasiriinta zamankan joogaan ka mid ah oona muftiyiinta suudaan jooga ka mid ah midaas ku fududaysa marka inaad marka waa maadaama wadankan noocaas u samaysnay waa ficlan wax walba ka helaysaa inaa mataqaanaa maxaa la xilliyada waqti unbaa kala qaybinayay sir kale hadda ma jirin waqtiga kale unbaa kala qaybinaya waqtina wixii kalaas waa ka xoog saarayay waqtina mataqaanaa علومتاس مساجدة iyo wax ku tacaluqo marka xalaqaadkaas iyo shariicada inta badan hadii noqoto mataqaanaa funuunteeda kala duwan fiqiga xadiidka iyo tafsiirkaba waxaa mataqaanaa xalaqaadka ku soo qaatay maasha allah marka maadaama nin qaari aad tahay waxyaaba kale aan ognahay aad micnaha ugu badan tahay waxaa waaye arrimahan dacwa oo koleyba sheekhda badan oo la yaqaano meel badan usoo raacdeen waxyaalo badan marka waxaan rabnaa inaan ogaano dacwadaas meelaha aad tagteen waxyaalaha ugu weyn mas ugu daran aad suubinaysaan maxay yihiin bismillah dacwada akhiyow dacwada aan hadda mataqaanaa walwad noqoto dacwada waa majaal maftuuxa qof walba mataqaanaa mas-uuliyad ka saaran sax ama qaari ha ahaado ama qaari u ahaanin qof walba mataqaanaa maxaa la dhahayay waajib ka saaran waaye marka aniga dacwadeyda waxay bilaabatay marka jaamacadda soo dhameeyay Nairobi ku soo laabtay ayaa mataqaanaa maxaa la dhahayay masjid ku yaala isli xaafadda section 3 ayaa mataqaanaa meesha imaam ka noqday masjidka meeshaas imaamnimada ka soo bilaabatay dacwadeyda oo xoogeeda meesha ka soo bilaabatay marka khudbooyinka iyo mataqaanaa kutubta la akhrinayo masjidka ama maxay ahaydee yani lectures mashaayidka kaliya ku ekeen hataa jaamacadaha meelaha qaar la tagayo ayaa mataqaanaa bilowgii dacwada uu ahaa kadibna waxaa xigay inaan mataqaanaa maxaa la dhahayay ilaa wadanka aan ka baxnay adiga wadamaha dhadhow jiiraanka ilaa mataqaanaa barnaamijyo dhowr ah dacwo u tagnay waa jirtay sida hadda waxay u dambeeyay hadda safarka u dambeeyay wuxuu ahaa South Sudan waa Juba waa dhowr mar runtii aqoon noqday walaalaha qaar kamid ah sabab waa inaan meesha aado waxaa kala mataqaanaa dacwo u tagnay wadanka la yiraahdo Kampala Uganda caasimadeeda Kampala Uganda waa tagnay gobolada Soomaaliya qaar kamid ah mataqaanaa waan tagay ziyaaro ugu tagay adiga wadamahan mataqaanaa maxaa la waan tagay socod ahaan hadii la yiraahdo ilaa India waan tagay sharqi waxay ahayd mataqaanaa Asia xagaas
وانتقي marka dacwadeena mataqaanaa waa un dacwatu anbiyaa dacwada culimada mataqaanaa wala saaran oo ayna mataqaanaa mujtamaca wacyi gelin lagu sameeyo qayb walba ay ahaato marka anaga kulley Soomaali baan nahay Kenya hala joogo mase Soomaali hala joogo marka wadamahan kale markaad tagtid aad fiirinaysid iyo dadkeena meeshan joogo xagga diinta waxbarashada diinta faafinta diinta dacwada marka isku barbar dhigtid maxaad ku qiimeyn lahayd mase aad ku qiyaasi lahayd bismillah akhi sheekh Umar waxa waaye Soomaalida Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta diintaas ku manaystay runtii waan aad iyo aad ugu duwanahay mujtamacaadka kale ku nool adduunyada dhigi karaa marka laga reebo carab marka laga reebo maxaa lahay mujtamacaadka kale aad iyo aad ugu duwanahay ila carabtu ayaga baan diinta ka soo gaarniba marka walow dhinacyo fara badan ugu fiicannahay sida barashada diinta oo kale kitaabada si qaabka loo raacday iyo waxyaalo fara badan ugu fiican oo jiraan laakiin mujtamacaadkan hadda Afrika ku nool runtii Soomaalida aad iyo aad waxyaalo fara badan ugu duwanaa jiro taasna waxaa sababaysa yani ummadaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulli ayaa la doonay khayrkaas waa dad usuushooda mar hore mataqaanaa muslimiin ay yihiin taas horta number 1 waay waxaa yeelay dadkan kale waxaa arkaysa qof soo islaamay awgiis gaal u yahay mujtamacaadkan kale marka dhaxkiisa marka waxaa ku soo baxaya dad islaamnimadooda mataqaanaa 100% ay ahayn wax badan ay weli ay qabli ka yihiin waxaa arkaysa waxyaalaha cajaa'ibta leh ninba muslim waa loo leeyahay laakiin wax xaraan ka agtiis ma jiraan wax walba iska khamriga iska cabaa kalaabku ku jira waa muslim laakiin meel fog aadin Kenya daaran joogna hadda Kenya marka tagtid Mumias Mumias marka tagtid Western exactly waxaa jiri jirtay hadda kingdom hadda kor jirtay boqortooyad ka jiri jirtay areadaas marka dadkii يعني wuxuu ku leeyahay mutaqaanaa waxa la yiraahdaa waxa magac buu sheegay kadib Abu Bakar kadib Umar يعني magac awiyalkiisa oo muslimiin aabis bal muslim uu yahay yaaba laakiin adigana ma uu ku leeyahay wadaaswan qool ko islaam asaga laakiin muslim walidkii muslim ahaan jireen laakiin marka Soomaalida marka anaga xoogaha dad badan Soomaalida boqolkiiba taas ugu doonahay maadaama dad abtirkooda muslimiin boqolkiiba yihiin taas waxay fududeysay dhaqankooda iyo diintooda inay ku dhignaadaan meel walba ay tagaan wad aragtay hadda adduunyada markii Soomaali ay burburtay wadanka Soomaali markuu burburay adduunyada meel walba ay Soomaalida ay tagtay waxa priority first u ah diintooda meeshay tagaan inay masaajid ka sameeyaan madrasana ka sameeyaan Nairobi aragtay dabaqada marka la dhiso hoos waxa laga furayaa mutaqana masaajid ma ahana mutaqana dugsi asaasiyaadka diinta waay صح macna qofkan wuxuu rabaa intimaa meel uu ku abtirsado oo macnaha mutaqana maadaama muslim uu yahay waxa way mutaqana wuxuu isku celinayaa bii'adaas muslimka ah masaajidku gali lahaa ilmihiisa meesha diinta ugu baran lahaayeen waa murugta u horeysa ninka Soomaaliga hatta xaafad markuu day wuxuu leeyahay masaajid ku yaala dugsi ku yaala marka tii waxana noqotay dhaqan nolosheena kamid ah tii marka waxay xifdisay inay dadkii ay haystaan diintoodii waxayna ku dadaalaan ku dadaalaan horta maalmaha ugu dambeeyay quraanka tartanka meelo badan aad loogu dadaalaa nacam quraanka waxa moodaa dib horta loo soo cusubeysi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa uu ballan qaaday quraanka inuu xifdiyo dadku waxa laga yaabaa muslimiinta in oo dacfi ku dhaca laakiin muslimiinta mutaqaanaa maxaa la hayay dad tartirmaya ma ahan oo sida ku zuulayo si walba يعني ضعيفان وكوي سوقعه marka hadda waxaad moodaa mawjid waxa jirto oo quraanka meel walba hadda mutaqaanaa sooqayso haday noqoto Soomaaliya haday noqoto hadda Kenya aan joogno haday noqoto mutaqaanaa ilaa Mareykan hadda arkaysay gabar baan lahda last year soo gashay number 1 ee quraanka tartanka Kenya keemaadi صح intay tartan u aaday Washington yes marka waa quraanka meel walba u galay Washington hadda mutaqaanaa maxaa lahayn anaga hadda noo soo aadnayaan hadda ayaga u galnay oo diinta u yeerina aragtay waxay quraanka meel walba u galay marka intaad macnaha meelaha wadamaha kala aadaysay oo waxaad macnaha kulay dadna wax waa u sheegaysay adna wax waa dhageysanaysa kulay sheekadii aad la yaabtid aad maqashay ma jirtaa intaad socotay صح والله horta Umarow sheekooyinka iska badan yihiin haye waxyaalaha mutaqaanaa mujtamacaadka kale aan ka arkay oo aan la yaabay waxa kamid ah dhaqamada ay leeyihiin dadka yiraahdo Hindida haye marka India ba martay marka iyada mutaqaanaa dacwo baxda uma tagin barnaamij caafimaad waxa ba mutaqaanaa u socday
waxyaalaha la yaabka leh oo marka mataqaanaa dadka ma jirin aad isleedahay waxaa ka mid ah mataqaanaa marka aniga aan mar walba aan arkaan soo xasuusto aan aad ula yaabo dadka la yidhaahda hindida waxay leeyihiin 3,000 wax ka badan oo ilaahay ah 3,000 wax 3,000 wax ka badan lo horta waaba arkayne iyo dab lo'du waxyaalaha la caawiday ka mid tahay waxyaalaha marka aan la yaabo waxaa ka mid ah nin takhtar ah oo nin takhtar ah dadka qalaayo oo maasha allah dadka leen ugu jiraan waa garan kartaa meeshuu joogo oo waddamaha looga imaanayo nin takhtar ah oo istaalka ka soo baxay istaalka banaankiisa baan joognay ninkii soo socday horta kabuu iska siiyey kaba la'aan waa ninkii taay iyo suudna wuu xiriy waana kaba la'aan waa yaabay soo maa nin suud xiran waana kaba la'aan meel geedi ninkii u socday jilbaha dhulka intuu dhigay uu gurguurtay oo ninkii war waxaa leeyahay ninka maxaa ka qaldan meesha waxaa ka dhow macbad oo yahuudda iska leeda meeshuu gal rabaa waa sigoo adigoo masaajidka soo galan xagga gurguur ka soo bilowday kole marka ninka meeshuu gurguurinaa fiiri waa istaagnin waddada dhinaceedii kale waa fiiriyey ninkii ninka si u socday meel macbad uu galay albaabkaa la furay wuu galay wuu siqay ninkii meesha markuu tagay sujuudu la dhacay sujuud markuu dhacay oohinuu bilaabay nin baa meesha fadhiyo waxaana ku yaala sanam weyno aad u weyn baa ku yaala sanamka marka hoostiisu fadhiya kan kale qad baa waxay ugu jiraan baashan guduudka maaragtay hindida inta loo mariyo kii ugu jirto waa soo dhawaanaysaa waxaa la dhahay qadda baa lagu marinaa qadda u mariyo kadib dhinac kale u maray ilaa meeshan dembi baa lagu dhaafaa anaga war uma hayno meesha meel dembi lagu dhaafo u ooy ninkii waana cabaaday kadib uu soo baxay ilaa mataqaanaa markaa bixaysa dhabarka ma aadini kartid soo gaalgaal u siqaayo wejigiisa sanamka aadinayo uu soo baxay waxaa arka waxay u yaab badnaa ahayd runtii baan ku sheegay bimacnaa marna ma u malaynaynin ibni aadan caqli ilaahay uu siiyey oo weliba mataqaanaa heer waxbarasho ka gaaray ilaa takhtarnimo in uu maxaa la dhahayay dhagax iyo geed la sameeyey inuu saa mataqaanaa maxaa la dhahayay iskuu dulleeyo marka waxyaalaha mataqaanaa markii arkaysid aad socotid mujtamacaadka kale aad ku arkaysid ay ka mid tahay oona mataqaanaa meelahan ku aragtay qariib ay tahay safarkaagii mandheera waxaan ognahay goorrow inaad mandheera imaaday markii waxyaabaad u imaaday bal haddaad wax nooga taabatid safarkayga hadda mandheera horta mandheera waa deegaankayga hooyo aabba degan laakiin waxaa hadda u imaaday socodkan barnaamij dacwo ah oo rag kooxaan isla soconay waxaan mataqaanaa mathala waxaan ahay secretary general ama xogeeyaha guud madallada isku xirta ama ma ahne isku tagga ardayda ka soo baxday jaamacaadka suudaan oo ku nool kenya dhan haddaan ku dhahaa qaab kale haddaan kugu dhigo raabitada khariijiin jaamacadda suudaan ama ma ahne suudaan alumni in kenya dadkii jaamacadaadka suudaanka ka soo baxay dhan baa secretary general u ahay وانا over 10,000 تخاتير واللوير واسكر ومحي هذا وعلماء ومعلمين دنا والبي ku jireen marka waxa jiray maadaama anaga mataqaanaa ka soo jeedna north eastern Garissa wajiya Mandera ayaa waxaan saareynay focus Garissa ka soo bilownay Ramadaanka ka hore barnaamij ku soo qabanay oo isku jira isku tag seminaar iyo wacyigelin bulshada qaybaha kala duwan oo jeera imaanay sidoo kale hadda mataqaanaa markada dowladku wuxuu ahay Mandera hadda marka imaanay marka waxa qabanay mu'tamar ama conference Granada ka dhacay maalinkii Jimcadii ay ka soo qayb galeen culimada imaams ay ka soo qayb galeen culimada maxay ahayd ducaadi waaweyn magaalada ay ka soo qayb galeen ducaadi waaweyn magaalada iyo aimada intooda badanna waa dadka Suudaan ka soo baxay waxa u horeeyay mesela Sheekh Suudaan Suudaan waxa weeye wuxuu ka mid yahay dufcadii u horeeyay ka soo baxay Suudaan 77 madaarista dadka ka soo baxay oo khariijiinta mudiriinta magaalada joogan madaarista waaweyn gacanta ku hayaan Suudaan ka soo baxeen mesela macad Nuur Islaam oo macadka u horeeyay Mandera Sheekh Abdu ayaa ka ah mudiir shalay wuxuu noo sheegay dufcadii u horeysay ama loodka u horeeyay inuu ku jiray oo markaz Afriqiya oo jaamacad Afriqiya ku dhex yaala markaz islaami
loodka u horreeyey ka dhameeyey inuu yahay noo sheegay 77 ku dhameeyey isagana sheekh cabdulqaadir axmed cilmi oo joogo maxay ahayd madaris sunna dadka jaamacadda durmaan islaami ka soo baxay waay marka waa arkaysaa inaa mataqaanaa maxaa lahay dadkii way wada joogaan saaxada ay ku jiraan dacwada marka dadkaas ayaa mataqaanaa doorka inay sii wadaan mujtamaca barnaamij mataqaanaa tawciya awareness oo dadkii dacwada way wadaan oo la dadaalayaa laakiin mataqaanaa bal inay markii mataqaan hal qof markuu dadaalayo iyo markii koox yahay farqi isku mid maahan marka dadka inay isku tagaan oo program la sameeyo khutta ama plan la sameeyo plankaasna lagu shaqeeyo haddii noqoto dhinaca dacwada dhinaca tarbiyada haddii noqoto ilmaha iyo dhalinyarada soo kacaysa iskuulada high school iyo primary ku jiraan in awareness loo sameeyo waxaa kaloo mataqaana jira qof walba wuxuu ku takhasusay inuu ummad ugu faa'iideeyo مثلا dhakhtar baad مثلا dhakhtar haddaad tahay inaa ummadda ugu faa'iideyso wax dhakhtarnimo ku xisaabsan saa daraaddeed takhaatiirta hadda baashan marka isku tagan wuxuu saacideynayaa hadda waxaa jiri doona sanadkan dhammaadkiisa insha allah hadduu ilaah yaraha ama sanadka soo socda bilowgiisa camp oo medical camps oo free ah north eastern kulli laga samayn doono hadduu ilaah yaraha marka barnaamijka noocaas oo dacwada isku jira marka khudbooyin fara badan magaalada laga sameeyay dadkii kharijiinta ka sameeyeen muxaadarooyin fara badan laga sameeyay magaalada barnaamij dacwo ah oo tarbawi ah ayaa mataqaanaa hadda socdaalkii ku ahaa mid ugu dambeysay waxaa rabnaa dhalinyarada wixii fariina hadday noqoto dadkan wax baranahay oo jaamacada ku jiro oo koosas kala duwan baranahay haddii yahiin dadka haddii ay tahay kuwan kale oo maaragtay oo magaalada joogo maxaad fariina u dhaafi lahayd dhalinyarada fariinta aan u dirahayo walaalihii dhalinyarada meel walbay joogaan khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed wax baranayso khaasatan dhalinyarada ku nool waqooyi bari khaasatan dhalinyarada ku nool magaalada Mandheera waxaa mataqaanaa kula dardaarmi lahaa waxa aad baranaysid inaa mataqaanaa akhru sheegtid marka horeyso si dhabna u baratid ilaahay markuu la hadlay nabi yaxya khud alkitaaba biquwwa yani with seriousness si dhab u qaado marka waxa aad baranaysid inaad dhab u qaadatid reer banu israa'iil kulli markii la hadlay waxay yiri khuduu ma aataynaakum biquwwa waxaan siinay kitaabka dhab u qaato marka waxaan baranaynaa inaan koran sheegno aan si dhab u barano marka waxa aan baranayno inta badan ilmaha secondary ku jira jaamacadaha ku jira dhib badan baa jira maxaa yeelay waxa ujeedada wax u baranaysid yani ma yaqaanaan dhalinyarada sabab maxaa secondary ugu baxday maxaa u jirtaa maxaa university u aadaysaa maxaa course u sameynaysaa ma yaqaan waxa laga yaabaa ninka hal shay bis inuu dhaho ay secondary anu ku jira hadda weydiisid si lagu soo barbaaray iskuulada markay ku jiraan waxa leeyahay what do you want to be in future allah anu soo yarba kala soo lagu bilaabo maxaa rabtaa inaad noqotid mustaqbalka anigu already waxa program ku jira mustaqbalkan uu ka fikiraaday waxa marka mataqaana araggiis kulli ay tahay si hadhowta lacag ku heshaa si guri ku dhisataa si noloshaada ku maareysaa waxaan ugu baxdaa bas hadafkiisa dhan intaas way sax وهدفكاسنا waxa mataqaana rag u rafaada ma aha u fikiro ma aha waa sax nolosha inaa mataqaana qofku wax ka bedelo wax ku dhaqansado waa tahay laakiin asaaska miya is the basic ina qofku mataqaana guri u dhisto maxaa lahay heer u gaaro laazim miya may adi macna adoo guri dhisana si fiican u noolaan kartaa marka waxa naga khaldan horta wax barashada mataqaana si kala u aaminsanna horta marka ka hadalno negative badan uu jiro qofku wuxuu aaminsan yahay hadduu maxay ahaydee systemkan education 8 years hadda oo 6 years loo bedelay oo form 4 ilaa iyo college hadduu marin in nool oo heli karin qofka kaasoo aaminsan yahay taa maxay keentay dadka markay soo dhameeyeen iskuuladii jaamacadaha ay soo dhameeyeen magaalada lagu soo laabtay shaqalaan waay shaqa malaan nin walba wuxuu rabaa mataqaanaa white collar job oo mataqaanaa xafiis inuu fadhiisto shaqo iska qabto magaaladana u jeedaa waxaa mara mataqaanaa webiya maro beeraha mataqaanaa jiro waxaa la fara badan la samayn karaa qofka u soo saari karaa oo horumar ah marka risaaladeydu waxay tahay dhalinyaro walaalayaal waxaan baranaynaa si sax u baranno diinteena number 1 hano ahaato ninka dhalinyarada waxbarasho ku jiro markuu maxaa la dhahay diintiisa ka fogaado adduunyada ma helayo آخرنا وخسارة والله العظيم لكن وحا يقين life experience وحلو أركي قفكم مركو دين تيسا
oo number 1 ka dhigo adigoo ku jirta high school adigoo ku jirta university wax baranaysa course ba baranaysa course kan ujeeda u baranaysa ina naftaada ku anfacdid muslimiinta ku anfacdid mujtamaca ku nooshahay wax ku soo kordhisid wax ay ka bedeshid fikirkoodi noloshoodi waxa hadii mutaqana murugtaada ay tahay ilaahina ku xaqiijinaya adigana ummadana mutaqana waxa la sawu ka yeelaya marka ujeedaydu waxay tahay iyo taladeedu walaalayaalow xaalad aan ku jirna maanta waa xaalad aad iyo aad murug leh ummad waxa la fiiriyaa markay baabi'i rabto ana waxa arkaa ummad mustaqbal lahayn ay muuqato runtii marka ka hadalno maanta la joogo dhinac walba fiiris murug ba ku dilaysa hadaa fiiris muslimiinta kulli guud ahaan murug waa murugoonaysa kuwa ka dhalatay magaalada ku dhalatay marka fiirisid murug ku darwaay waxa yeelay ummad waxa laga fiiriyaa horumarkoodii ama dib u dhacoodii dhalinyarada maanta dhalinyaradeen xaaladooda see waay xaaladooda waxa waaya إلا إله إن يرون حريستي مؤوي بقول كيف سغاشن إن كبضن إن فكر كذا قاب كأو فكران قاب مسلم معها قاب مسلم فكر معها ووستنايزد وستنايز ايديولوجي عنو كبوها وحو اسكو هايستا إنه دادك أنا كعقل بدين هاي إنجليش يار لو حبركو كوها لحو وهايستابا إن نك داد منتقارنا دادك مقالة سعودين وحبك الوين تيم حيكي أنتي مقالة أنو كتاقا مقالو كالو تاقا مركا مقالة كي ماذي ونعا تاو حيكي أنت هذا مقالة لأن يرد مجوغان تنجران وحكوا ورا مدار آدم يقولون بيس فانا حكي سكتها وحكوا لي وحيقولون بيسي لو دخل يتونكي أو كفارة أسأل دكاس إن لسوا عليوا ومدام منتقنا مركح أباهيهن إن دعن قاضي فهمان دبلو صار نقطة ما شاء الله هذا دوما حسنت هاي مرك وحاربة صورة دو قابن هذا نو قامنين لكن أنا نو آخر ست ما شاء الله أنا إنا كره حسن صحوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.